السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا وريسا عنو لا يالاني عبدي حسن عوالي قيبديد oo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug mudane kusoo dhawow telefishinka Somali Channel magacaygu waa Cabdikariin Cali Kaar aad iyo bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad Cabdikariin oo mahadsan tahay waana kusoo dhawaad mudane waxaa jirtay inaad ka qayb gashay shir loogu magac daray hiigsiga cusub New Deal oo ka dhacay Brussels waan ku kulanay shirka marka waxaad nooga warantaa bal yaa idin casuumay shirka shirkaas waxa yaan kamid ahayn maaragtay midowga Yurub ama dawladaha isku tagay Yurub ayaa nacasumay casimadooda saasaan ku nimid madaxdii iyo dawlad goboleedyadii ama dawladii dadkii laga casumay baan kamid ahayn wafti anigu aan hogaaminayo marka midowga Yurub toos idin casumay mise casuumaadii dawladda Soomaaliyeed heshay guud ahaan baad qayb ka ahaydeen oo sidaas aad ku timaadeen anagu waxaan kamid ahayn dhamaan casuumaadda Soomaaliyeed yani hay'ad kasta ama dawlad goboleed ha ahaado ama maamul ha ahaade waxa la marinayay magaca dawladda Soomaaliyeed federaalka ayaa la soo mariyay okay maxaad kala kulanteen shirka waxaan kala kulanay runtii soo dhaweyn baan kala kulanay runtii aad iyo aad u fiican waxaan kala kulanay rajo cusub oo aan u arkaynay Soomaaliya maaragtay mar hadii higsiga cusub uu ahaa wixii Soomaaliya sida dalalkii hadda ka hor adduunka loogu sameeyay oo dhaqaalahoodu burburay oo dagaaladu ku dheeraadeen sida loo soo kabi lahaa inay ahayd arrin runtii rajo u leh dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay noola muuqatay okay marka qorshe waxaa jirtay in gobol walba iyo maamul goboleed walba iyo dawladuba ay qolo walba baahideeda iyo qorshayaasheeda dib u dejineed ama dib u dhiseed gooni u wadatay marka idinku ma qorshihii dawladdu dejisay dokumentiga compactiga ay ka keentay Soomaaliya baad qayb ka ahaydeen mise sida maamul goboleedada qaar kamid ah sheegaan waxaad wadateen wax idin gaar ah oo aad European Union ka la hortagteen runtii anagu waxaan wadanay wixii dadka Soomaaliyeed guud ahaan laakiin anaga wafti baa yimid oo ka socda bulshada caalamka iyo dawladda federaalka ayaa anaga muddo 5 maalmood ayaan ku shiraynay maamulka iyaga nala kugu yimid wixii anagu aan diyaarsanay baanan hor dhignay waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd cid waliba deegaankeeda ayay danaheeda iyo waxa u daran iyo prioritiska ama muhiimadda 1 iyo 2 iyo 3 ay kala leedahay oo sanadaysan annagoo ku maartay ka duulayna qorshe hawleedka dawlad goboleedka Galmudug 3 sano ayaan anagu u soo gudbinay asagii oo content page ka kooban oo aan hore u soo diyaarinay asagiina dabcan wuxuu ka mid noqday documentiga la soo bandhigay oo loo soo gudbiyay maaragtay dadka Soomaaliya maaragtay bulshada caalamka meesha ay ku caawinayso marka marna Soomaali baan ka mid nahay marna barnaamij noo gaara ayaanu anagu soo gudbinay okay marka qorshe hawleedka Galmudug wadatay ee tiri wuxuu ku jaango'an yahay 3 sano bal wax nooga sheeg runtii waxay kala leeyihiin waxna waa wax oo hadeer baahiyo degdeg ah oo taagan weeye waxna waa horumarin arrimaha matalan qaybaha ugu daran waxay ahayd qaybaha waxbarashada waxa ugu daran oo kale kamid ah yani maadaama gobolada dhexe aysan lahayn horay dawladihii hore aysan uga tagin infrastructure ama
kaabayaal dhaqaale aysan jirin. waxyaabaha noogu daran waxaa ka mid ahayd waan soo gudbinay dekedda Hobyo oo yacni aan doonaynay haatana bulshaduna ay dadka shirkad ay abuurantay ganacsi ah oo hadda dhismadeeda bilaabaya in ay mashruucaas inuu ka mid noqdo. waxaa ka mid ah wadooyinka oo matala meel isku jirta 200 kilomitir ku jirta ayaa laga yaabaa 2 maalmood in loo socdo wadada xumaanteeda. oo waxyaabaha oo airportada ka mid ah hore aysan u jirin. airport way jireen meelo oo biisooyin yar yar laakiin ma jirin airport caalamiya oo la isticmaali karayo Soomaaliya iyo bulshada caalamka ahba. waxaa ka mid ah arrimaha muxuu ahayd capacity building maadaama anagu dawlad hadda 7 shirsatay maamulka uu yahay awoodiisa dhaqaalana ay limit tahay. haddee in aan helno in maaragtay nala ka kaabo waxyaabaha muhiimadda koobaad waxaa ka mid ah arrimaha kor u qaadidda bulshada dadka u shaqeynaya bulshada u adeegaya maamulka sida maamul xukuumadda sida baarlamaanka sida degmooyinka golayaasha ka dhisan iyo wixii lamid ah. okay, markaa dekedda magaalada Hobyood waxaan ogsoonahay in maamulka Ximan iyo Xeeb laftoodu ay meelaha ay sheegtaan ka mid tahay Hobyo. marka aad qorshe hawleedka ku darsanayseen oo sida aad sheegtay shirkadaasi ay sheegaysay inay meesha dhisto Ximan iyo Xeeb iyada ma la hadasheen oo ma isku afgarateen in ama idinku aad dhistaan ama wada jir aad u dhisataan? marka ugu horeyso dekedda dhismadeeda waxaa dhisaya waxa weeye waa shirkad private oo ganacsi ah cid walba ku jirta. marka ma ahan deked muxuu ahayday dekedina waxay ka dhaxaysaa yeesha qof ma yeesho ama qabiil ma yeesho ama deegaan gaarme. deked waxaa iskale marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa leh. waxay timaadaa dawladda Soomaaliyeed ay hoos tagtaa. marka dambana ciddii maal gashata ayaa marka ma ahan arrin maamulka maalgelin maamulka uu sameeyay ma ahan ama mid galmuduga ama Ximan iyo Xeeb waa mid ay samaysay bulshada. Ximan iyo Xeeb waanu u soo noqonaynaa. shirka waxaa ka hadlay oo madaxdii khudbadda ka jeedisay ka mid ahaa Faroole. waxaa Axmed Madoobe sheegay inuu maamul goboleedada magacooda iyo afkooda uu ku hadlay Faroole. idinka ma idin hadlay? maya, arrintaas waxay ahayd wax ka baxsan maaragtay nidaamkii iyo qorshaha shirka wax ka baxsan bay ahayd. mar hadday ka schedule-kii ama barnaamijkii dawladda Soomaaliyeed meesha looga hadlay oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku hadlay oo magacii Soomaaliyeed hadda waxay ila tahay waxay ahayd taasi arrin asaga u gaara laakiin magacaan leenahay ma uusan ku hadlin. magaciina kuma hadlan. okay, maamulka aan u soo noqono Galmudug waxaad og tahay in dastuurku uu qabo in 2 gobol iyo wixii ka badan ay maamul goboleed noqon karaan. inkastoo aad ku jirtaan maamul goboleedada haysta magaca maamul goboleed oo aqoonsiga caalamiga ah haysta haddana shuruudii ma aydan buuxin. sidee rabtaa marka inaad ku jirtaan? aad baa u mahadsantahay. waa su-aal fiican cali. arrintaas waa run. annaga waxaan ka mid nahay maamul goboleedyada caalamiga oo adduunka iyo Soomaaliyaba laga aqoonsan yahay. dawladda federaalkana aqoonsanta. haddana dhinac dastuurka markaa fiirisid wuxuu siinayaa xuquuqda uu maamul goboleedku leeyahay oo dastuuriya oo dhinacna
qodobkii ahaa 2 gobol iyo wixii ka badan. marka arrintaasi waa midda hadda annagu aan ka midnahay sidii loo gaari lahaa. waxaad la socotaa dhowaan in hadda 3 bilood lasoo dhaafay waxaa socda shirar gobolada dhexe kii lagu qabtay haddeer ka dhacay magaalada muqdisho oo ay nagala qayb gashay dhammaan maamulada gobolada dhexe hiiraan galgaduud iyo galmudug maamuladii raba dhexdooda inta dhexdeeda wixii maamulaha ku jira ku jireen oo sida xubin iyo xeeb waxaa ka mid ahayd ahlu sunna waxaa ka mid ahayd maamulkii galgaduud dowladda magacaawda waxaa ka mid ah maamulka hiiraan kulli waataan isku nimid arrintaas annagoo ka duulayna in la dhammaystiro maaragtay shuruudihii maaragtay lagama maarmaanka ahaa ayaan waxaan wadnaa in maamul loo dhan yahay gobolada dhexe oo dhani. shirkaa aada muqdisho ku qabateen shirka muqdisho ka dhacay ma isku afgarateen ximan iyo xeeb? waxaan isku afgarana dhammaan waa la isku afgartay waana la saxiixay. maxaa la isku afgartay? waxaa la isku afgartay heshiis ah hordhac ah in lagu laabto dalkii kow la qabto shir dib u heshiisiina. waxaana la isla ogolaaday in magaalada Cadaada lagu qabto waana la saxiixay. goorma? isla markaa laftigeeda la saxiixay. goorma shirka la qabanaya? shirkaas waxay hadda ka hor inuu dhaco laakiin dhismadii waxaa soo dhexgalay runtii maamulka xubin iyo xeeb oo cusbaa dib u habeyntiisii ayuu codsaday in waqti yar wayna dhammaysteen. haatan wixii inta xilligan ka dambeeyana waxaa diyaar loo yahay in la iskugu tago magaalada Cadaado xubin iyo xeeb magaalo madaxdeeda halkaana dib u heshiisiin lagu qabto. isla markaasna uu ku xigo midkii maamul midaysan lagu dhisi lahaa oo aan filahayo inuu ka dhacayo sida ilaa hadda is-afgaradka dib laga bedelayo bulshada ayay ka falantaa laakiin inuu Cadaada iyadana Dhuusamareeb ka dhaco shirka lagu dhaxay maamulka gobolada dhexe. labada arrimood waa arrin qoran oo la saxiixay oo annagu aanu runtii aan maleynaynay weliba ilaa bisha October in lagu dhameeyay ahayd labada face oo shir ka hor. duruufaha jira awgeed dib u dhaceen arrintaasna dowladda federaalkana waa qayb bay ka ahayd. dowladda federaalka maadaama aad soo qaaday adoo raalli ah inaan kaa dhex galo waxaa jirtay inuu idin soo booqday ra-iisul wasaaruhu waxaana qorshihiisa ku jirtay in gobolada dhexe maamul loo sameeyo oo idinka dhaadhiciyo sidii aad qayb uga noqon lahaydeen maamulka meesha kasoo bixi doona. maxaad isku afgarateen idinka iyo ra-iisul wasaaruhu? annagu ma aan horta annaga ra-iisul wasaaraha nagama dhaadhicin inaan wax isku darsanay. annaga hortiisaan wadnay hortiisaa waxaan ku qabanay magaalada Kaalkacyo waxaa lagu qabtay shir soconahayay 4 maalmood oo ay kasoo qayb galeen dhammaan maamulka gobolada dhexe ay kasoo qayb galeen. ra-iisul wasaaraha arrintiisa markaad kulanteen ra-iisul wasaaruhu arrintaa iyadaahi tii aan wadnay unbaa ayay dowladda federaalku qayb ka ahayd laakiin wax kaloo hadda oo arrintii magaca oo aad isku qabateen oo ahayd inaad galmudug ka tanasushaan maamulka meesha kasoo bixi doonana qayb ka noqotaan iyada bal wax ka dheh. kama aan tanaasulin galmudug waa sharci weeye sida dowladda federaalka ahi ay u lehaysto sharciyada loogu dhisay ayay galmudugna waxay u leedahay qodob dastuuriya inay tahay dowlad goboleed. marka inta laga gaarayo dhammaystir gobolada dhexe ama la dhammaystirayo dowladda Soomaaliya deegaanka Soomaaliyeed oo dhan federaalka laga dhammaystirayo oo bulshada Soomaaliyeed ay qaadanayso federaalka ay qaadanayso oo codeynayso inta ka horeysa galmudug waa sharci taagan oo qodob dastuuri ku dhisan tahay. marka cid laga baryayo cabdiyo markaad sidaa tiraahdo ximan iyo xeeb iyaguna waxay ku doodi doonaan inay sharci yihiin. maamul kale isna waxaa jira la yiraahdo gal hiiraan oo dadka dhulka dega iyaguna ah Dhuusamareeb iyo
iyo Guraceel iyo Matabaan waxaa jirta iyaguna nimanka odayaasha magacoodii ahlu sunna wal jamaa sidaad marka rabtaan haddaad idinku ku adkaysataan in magaciinaasi jiro sidaad rabtaan in dadku isku raacaan oo meesha maamul ka yimaado annagu marka aan ku leenahay shir baa lagu qabanaya Cadaado ama aan ku leenahay Dhuusamareeb baa shir maamul lagu qabanaya macnaheedu waxay tahay ma ahan annaga markii la isku yimaado magaca ka tanasulaysaa annaga markii la isku yimaado dadka isku imaanayo wax isku darsanaya ayaa go'aanka iska leh meesha ay caasimada ka dhiganayaan magaca ay qaadanayaan iyo cidda ay madaxda ka dhiganayaan marka la shiro oo maamuladu isku yimaadaan maamulka kale ma jiraan dadka deegaanka oo ereyada degan oo reeraha aad ka dhalatay marka aad kulantaan diyaar ma u tihiin galmudug ahaan inaad magaca galmudug ka tanasushaan haddii ay qaataan shirweynuhu saas ay go'aansadaan yes waad ka tagaysaan magaca okay waxaa muuqanaysa muqdisho wixii aad ku hayn jirteen inaad gobolada dhexe geyseen arrintaa bal wax ka dhayada يعني waxa wanaagsan baan xamar ku haynay xagaan geynay meel u wada maxaa waxaad ogtahay in ay magacyo jireen fara badan oo la idin yaqiinay oo dagaal oogayaal kamid ahaayeen oo qabqabliyaal ay kamid ahaayeen oo rag badan oo aad isku jiil ahaydeen inkastoo intoodii badnayd hadda siyaasadda ka baxeen marka dadka aad ka dambayso in arrimihii aad xamar ku hayn jirteen intaad qaadeen aad goboladii arrintaa wax ka dhimudane taas runtii ma ahan wax hadda oo su'aal hadda maanta ka qabqabli dalkan hadda kama jiro dalka dawlad baa ka dhisan annaguna maamul sharciya oo waana la doortay annagoo iskama aana imaan dadka aad sheegaysa waa dad midha meel xoog deegaan ku qabsan jiray laakiin anigu kuwaas ka mid ma ahayn weligiina kama mid noqon bulsho islaameed meeshaan laakiin systemya aan ku jiray waa jireen dalka dagaalo civil war baa dhacay Soomaaliyana ka dhacay cid walbana qabqabluhu siyaasi dibadda joogana waa ahaa nin wariyaa oo idaacad ka shaqeeyana ka mid buu ahaa mid lacagta wax lagu dilay soo aruurinayana ka mid buu ahaa marka Soomaaliya dhan baa wada qabqabla ahayd marka waxaa haboon inaan aadno Soomaaliya maanta inay nidaam ay u midaysan tahay iyo nabad qofkii la doortaa oo dadkiisu doortaanna qabqabla ma ahane waa qof muxtarim ah oo sharaf leh oo dad baa soo doortay waxaa hadda muqdisho ku xiran xasan daahir aweys sidaad xarigiisa u aragtaa xaqiiqadii xasan daahir aweys waxaan u arkaa ilaa iyo xasan uu wax kale la yimaado annaga waxaan ogaan xasan oo shabaaba oo diriirahaya oo dagaal ku jira waa la soo qabtay welina gacanta dawladda ku jira annaga ilaa aan aragno xasan oo la yimaada wixii uu ku jira wax ka duwan oo statement ah aniga xaggayga dambiilo ka yahay laakiin wuxuu dambiilo ku yahay dagaalaad ku wada jiri jirteen adigii isagu muqdisho wad ku dagaalanteen dagaalo kale fara badan oo adiga laftaada ka qayb qaadatay baa jira marka haddii dagaal la galay dambiilo lagu noqonayo miyaanad adiguba dambiilo ahayn ma ahan dagaalka aan galna ma ahan midka dadka shacbiga Soomaalida lagu xasuuqayo ma ahayn annaga ma ahayn Soomaali ma ahayn dadkii ku dhiman jiray dagaalada aad gashaan dabcan Soomaaliya hadda waxaan ku yiri hadda aadna Soomaaliya yaa diriiray hadda meesha hadeeray nooga laabanaysa laakiin xasan wuxuu ahaa shabaab dadka diidan dawladnimada Soomaaliya ayuu kooxdaas ka mid ahaa welina ma oran waa ka baxay yani meesha farqiga ku dheeyaa marka afkiisa ilaa laga maqlo anigu waa ka baxay weli waxaa socda ficiladii arkaysa maalin walba dadka la laynayo dadka la isku qarxinayo dhaqankaasina ma ahayn dhaqan dalkayaga iyo diintayada midna ogoshaa ma ahan waa dhaqan dibadda laga soo guuriyey marka laguma kombeer garayn karayo lama barbar dhigi karayo dagaaladii Soomaaliya ka soo dhacay 20 sano oo beelaha Soomaaliyeed dadka waa dili jirnay iskuma qarxin jirin ma aan dili jirin anaga dadka yani sidaas uma dhigayna anaga dagaalo waa ka jiraan Soomaaliya laakiin dagaalo siyaasadeed bay ahaayeen awood baa la isku haystay xukunka dalka
iyo wax lamida ama mid tribal ah oo qabiil dirayay la diray waa jira laakiin ma jirin mid waxa hadda jira ma jirin Soomaaliya xasan daahir arrintiisa anaga u soo noqonayna waxaa jirtay in la sheegay oo odayaashii xasan ka keenay cadaado ay sheegteen in dawladdu u sameysay ballanqaad ah in loola dhaqmi doono sidii oday Soomaaliyeed oo aan la xiri doonin arrintaa ka waran iyada ballanqaadka maxaad ka ogtahay anigu lama socdo ballanqaadkaas waxa weeye arrintaas anigu lama socdo odayaal inay dooneen waa la socday meediyada kala socday hadda taas hadee cidii u dirtay iyo ballanqaadka iyo dawladda u dirtay iyo odayaashii keenay iyo taasi waa cid kala su'aashaas la ku haboon inay ka jawaabto marka laakiin adiga aragtida aad ka qabto in odayaal oday dhaqameedii ku jiraan oo sida la ii sheegay ugaas ka mid ahaa oo dad mashaayikhi ku jiraan ninka loo diray oo la yiri ballanqaadkaas aad haysataana keena oo looga baxay oo qaar kamid ah la dakhray oo dhaawacyo soo gaareen wax fikrada maxaad ka qabtaa adiga arrinta يعني فيري waxa la rabaa wuxuu nature-kay ahayn hadii wax kale loo duwo yani waxaan ku iri mar hadii ballanqaad uu jiray oo dabcan anu hada ballanqaadku ma wuxuu ahaa hala keena kaliya ma wuxuu ahaa hala keeno hala siidaayo ma wuxuu ahaa hala sahlo oo dhibaato kala dhicin ma asaga hala badbaadiyay ahayd taas waxaan isleeyahay hadda ninkii waa xiran yahay gacanta dawladuna ku jira waxaana qabaa meesha oo hadda sidoo hadda situation hadda ku sugan yahay ayaa kii hore uu ku jira xasan daahir waskana uga fiican waxaad ka mid ahayd raggii sida aadka ah oo dhow ula shaqayn jiray Caydiid bal xiriirka adiga iyo Caydiid idin dhaxeeyay wax nooga sheeg runtii xiriirka naga dhaxeeyay waxa Caydiid mid wuxuu ahaa ku dhisan Soomaaliya in xukunkii jiray in laga bedelo dalka oo ah rejiimkii markaa jiray oo aanu arkaynay inuusan runtii si sax ah aan dalkan loogu hogaamin marka rejiimka in la bedelay ahayd xiriirka naga dhaxeeyay wax kale oo hadda xiriir oo dhaqaale iyo xiriir dana kale ma jirin arrintaasna waxay ka mid ahayd waxyaabihii Soomaaliya soo maray oo ahayd iyadoo wax fiican la raadinayay xukunka hal la rido wax fiican ha lagu bedelo laakiin aysan ka soo bixin ay ka soo baxday dhibaatooyin isdaba joog oo midaba mid u dhiibaysay marka waxa dhacday in intii aad wada socoteen Unisom 2 adiga iyo Cismaan Caato ay idin xireen soo noqodkiina muddo kadib idinka iyo Caydiid waad iskhilaafteen wal labada arrimood isku kaaya qabadsii maya aan ku saxay aniga layma xirin waxay Cismaan kala xirin fiimaan lagu qaban Unisom kuma qaban maya gacanta Unisom ma baad gelin maya ma baad gelin marnaba barigi aad dhaawacantay oo dagaalka meeshii April markii odayaasha la duqeyn jiray aad ku dhaawacantay iyo wax jira hadda taas aad marka dhaawacantay laakiin lama qaban kuma qaban marka dhaawac dhacay dhaawac lama qaban aniga okay waxa la qabtay nimaan isku magacayn oo Maxamed Xasan Cawaale leeyahay waa barsoor Cawaale way laguma qaban okay marka waxaad noo sheegtaa bal khilaafkiini iyo markii Unisom ay meesha timid iyo khilaaf iska horimaadkiini Caydiid iyo idinka arrinta bal isku waxa iska nature way waxa hadda weyn oo waa history way taas waa arrin history ah waa run waxa laga tahay Cabdi Adoor Raali iga ah waxa aynu maanta qabanayno haday noqon lahayd hadal iyo ficil intaba waa wax taariikhda ku jira oo la rabo jiilka Soomaaliyeed ee soo socday inay ka faa'iideystaan oo ku cibro qaataan marka waxaan jeclaan lahaa bal inaynu arrinta faahfaahino si siyaasiyiinta dhalinta yar iyo dadka arrimaha aan waxba badan ka ogeynin ay wax ugu ogaadaan marka khilaafkiini markii Cismaan Caato la xiray oo la soo daayay in yar kadib idinka iyo Caydiid wad iska hortimaadeen adiga Cismaan Caato waxa tiin isku reer wal arrinta noo yara iftiimi hadda reer ka aniga Caydiid ba isku reer baana oo hadda
هذه عديد كرر متين مركز البربر دقة اسمان عاطف marka يعني ما ahan wax hadda weyn oo hadda issue horta wax noqon karaya annaga dhani dad waxaan ahayn ehela Soomaali baana wadanahay isku deegaanna waa ka nimid marka arinta ku saabsan maxaa isku qabatay waxa la isku qabtay arrin siyaasadeed bay ahayd waxay ahayd saana fiican iyo saana fiican waana arab iyo ilka wax iskugu dhow ayaguna waa isqaniinaan marka laakiin mid baan cadeynaya inaan isqabadkayagii iyo isku dhacyagii inuusan ahayn mid sax oo keenay wax wanaaga inuusan ahayn that's only I can intaas waxaa jirtay isaga oo dagaal idinkula jira in Caydiid geeriyooday geeridiisa maxaa ururkiinu ka groupkiina markaa cakaar la oran jiray maxaa geerida Caydiid kala socoteen يعني Caydiid anagu waxaan kala soconay dabcan inuu dhaawac baa gaaray dhaawacii uu dhintay xilligii Ilaahay baana ugu talagalay xilligaas inuu geeriyo xamar wiilkiisa oo aan la kulmay ii sheegay inkastoo ay tahay arrin laga doodi karo in qori dibadda laga keenay oo sirdoonku ay wax ka ogaayeen oo rifle oo sniper la keenay idinka maamulkiina aad wax ka ogeydeen qoriga xabadiisii ay ku dhacday marka waxba aad kala socoteen geerida ay Caydiid ma jirto annaga deegaanka iyagu qori dibadda laga keenay oo ku xiran via satellite-ka laga hogaaminayo technology Soomaaliya ma gaarsiisana halkaas mudane waxaa dhacday in 2005 marad halkan booqanaysay lagugu xiray xariga bal nooga sheekay wuxuu ahaa xarigaas wax wuxuu kamid ahaa dhacdooyinkii Soomaalida oo iska qabaliga ahayd oo civil war-kii firarkiisii qayb kamid ah ayay ahayd dad baa dacweeyay oo la yiri intay maxkamad tageen wuxuu dad buu naga dilay marka taasina ma jirin oo hadee waa dadkii halkan joogay baa ogaa waxay noqotay wax beena anigana waxa la siiyay raali gelin documentina waa la siiyay inaana dambiila ahayn sababtaas weeye sababta aan halkan maantay bulshada reer Galmudug aan ugu soo booqanaya iyo bulshada Soomaaliyeed ku soo wadi su'aashaasi maadaama halkan hore lagu xiray sababta aad ugu soo dhiiratay mar labaad inaad timaado waxaan ugu soo dhiiraday hadee mar haddaan ogahay aniga shakhsiyadeeda inaana dambiila ahayn wixii hore laygu dacweeyana wax sal aysan ahayn marka Xasan Daahir anoo ka xun inaan tusaale u soo qaato wuxuu hadda u xiran yahay dhibaatooyinkii dhacay oo uu qaybta ka ahaa ilaan Xasan oo qof dilaya wali ma hayno oo nama duubna dad uu qalayna lama sheegin marka maadaama isaguba nidaamkii dhacay ee dadku ku dhinteen ummadda ku baabaaday oo qaybta ka ahaa lagu haysto adna nidaamyo badan oo aad ka mid ahayd dad badani ku dhinteen maxaa diidayay in dambiga lagu qabsado annaga cid kasta oo dambi nagu haysata Xasan hadda dambi baa lagu haya Xasan wali waa in yani wuxuu ku jiraa shaqada socota madaxa buu ahaa shaqada socota Xasan maalintuu yimid aan waxaan aaminsanahay hadduu oran lahaa sorry anu arrintaa waa ka baxay anu ma qabo in hadda waxa hadda jira inay jiri lahaayeen yani saasaan aaminsanahay laakiin haddii walaalkay Xasan uu wali ku adkaysto arrintaadii inoo soo celi maadaama Xasan lagu haysto nidaamkii uu kamid ahaa dadkii ku dhintay adigana nidaamyada aad kamid ahayd iyo dagaaladii aad gali jirtay iyo ururadii aad kamid ka ahayd oo USA laga soo bilaabo oo SNA Caydiid ku jirtay ay kamid ahayd oo nidaamkii kale oo adiga iyo Ismaan Cata aad kamid ka ahayd inay ku jirto oo groupkii kale ee maxaan iraahdaa argagixisa la dirirka dadkii ku baabay kamid yihiin maxaad ku diidaysaa in dadka lagu qabsado geeridooda waxa weeye marka ugu horeysa horta Soomaaliya waxa ka dhacday dhibaato ka dhacday oo waxaan wada ognahay dhibaatadaas Soomaaliya oo dhan waa ka qayb qaadatay marka waxaan suganaynaa maalintii maxkamad Soomaaliya oo dhan la soo xirayo marka Soomaaliya oo dhan la soo xirayo waa sugaynaa qofna ma oran kareen nadiif baan ka ahaa marka taa waqtigeedaan suganaynaa
laakiin annaga arrintaa ayadaahi mana jirto wax shaksi iyo si particular ah ama mid isirsuulina ama mid ideology oo diina iyo waxaa jirtay dhacdo caan baxday raalli adoo iga ah oo suuqa dahabka magaalada Muqdisho bakaaraha ka dhacday in haween ganacsanaya oo dahab iibinaya hoobiyaal dhowrihii ku soo dhaceen dad badani ku baaba'ay gabdho badani ku naf iyo ganacsi iyo lacag bawaayeen waxaan qiyaasayaa in dhacdadii lagu qabsaday Suudaan iyadu kamid ahayd arinta balka ma kamid maahayn kamid ma dhacdada bal nooga sheekay maxaa dhacdadaas waad maqashay ana waa maqlay wax lagu kumeeyay marka anaga aba yaraat wax lagu kumeeyay marka magaalada Muqdisho dhibaatadu ka socotay meesha kaliya ee hoobiye ka soo dhici jiray ee wax laga soo ridi jiray halkii aad ku jirteen waxay ahayd say ciidamadiina ku jireen oo say biyana dhabarkeeda ahayd marka ma waxaad leedahay hoobiyaha anagu ma aan ridin meel kale laga soo ridin anaga waxa weey meesha dagaal badan baa ka socday magaalada afarta koone dagaal baa ka socday marka anaga waxaan aaminsanahay sabab hawshaas aan يعني meel publicada in anagu wax ku ridno ma garan kara aniga riday marka يعني waxa riday aan isleeyahay dad aan mas'uul ahayn meesha rabana ka soo jeedeen dariiqaday rabana ku yimaadeen laakiin waxa yaraatay arintaas anagu shaqo kuma lahayn annaga maamulka anagu aan kamid ahaa kuma shaqo kuma laha hawshaas okay madan waxaan rabaa gabagabadii inaan su'aal ku weydiiyo muhiim ah aniga aragtideeda aad muhiim u ah waxaad kamid ahayd USC waxaad ogtahay bay dalka ka sameysay waxaad kamid ahayd SNA waxaad ogtahay bay dhigtay waxaad kamid ahayd cakaara waxaad ogtahay baa ka dhacay waxaad kamid ahayd nimankii odayaasha ahayo argagixisa la dirirka waxaad ogtahay baa dhacay waxaa jira madax Soomaaliyeed oo maanta geeriyooday oo Allah u naxariistadooda lagu dagaalamo lagu diriro oo la isku laayo oo la yiraahdo hebel Allah u naxariistaha oranay waxaad rabtaa inaad nimanka ka mid noqoto soo may wanaagsanaateen inaad hadda meel ka fadhiisato oo Soomaalidu maadaama nin cid aanu ku jira tahay isbedel badan in wadanka ka socdaan inaad Soomaalida dhinac ka fadhiisto oo siyaasadda ka harto taasi waxa weeye waxay adoo haddaad yani saas u garanaysid hadda anaguna waxaan isleeyahay taasi horta maraan ka fadhiista waa ka fadhiisanaya taas question kama taagna ama da'daydan iyo ogolayn ama caafimaadkan iyo ogolayn ama xilka aan hayaa mandatekiisa xil ku egi marka taas waxaan ka fadhiisanayaa markii ilaahay xogmo weeye ugumana jira anigu hadda meesha hadda waxaan ugu jiraa whatever inta aad sheegtay aan kamid ahaa waxaan ugu jiraa hadda inaanu maantay dhismada iyo dib in Soomaaliya la iskugu soo celiyo dib loo heshiisiyo dib dariiqii oo dagaalada keenayay loo saxo in maaragtay adoo raaliga ah waxaa jiray gabay uu sameeyay Singu waxa duluc yar kamid ah oranaysay ninkii dilayay buu doodayay nabad bayow doonay marka dadkii dhibaatada ka qayb qaatay oo distraction ka kamid ahaa oo burburka tiirarkoodii kamid ahaa inay haddana dib u heshiisiinta iyagu sheegtaan oo yiraahdaan annaga dadka heshiisiinayno isku keenayna bal wax ka dhayada hadda mid dibadda jooga oo dalka ka warqabin oo waxa ka dhacay ka warqabin oo dadka kala aqoon oo diaspora hadduu yiraahdo aniga barf dhul dibadda jooga oo waxba la aqoon halay keen kaas waxa wax sixi kara kii jooga dagaalka kii dadka yaqiin kii deegaanka yaqiin kii ogaa meesha la iska qabtay meesha wax ka qalloocdeen kaasaan qabaa inuu wax sixi karo waa badan oo Soomaaliyeed waa badan baa ku bariyay Soomaaliya in badan baad kamid ahayd siyaasiyiinteeda wax badan baad ogtahay maxaad islaadahay arrinta Soomaalidu way ku dambeynaysaa ugu dambeyntii runtii waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay ku dambeynaysaa nabad bay ku dambeynaysaa dhibaato aan soo marnay iyo burburka nagu dhacay adduunka dhan buu ka dhacay maanta hore u maray burburkii bay ka faa'iideysteen dhibaatadii dariiqii saxa bay qaateen waxaan qabaa Soomaaliya wax dhib ku dhacay waa ku dhaceen hadduu dibad joogo iyo hadduu guda ku jiraba waxaan qabaa in ay ku dambeynayso is afgarad nabad waayo way muuqataa
marka sida hadda laysku aruursanayo sida layskugu soo dhowaanayo sida maamuladii hore u jiro yaryarka ahaa ay hadda u rabaan inay u midoobaan si dowladda federaalka hadda loo taageerayo oo yacni aan la support garaynayo waxaasoo dhani waxay gaarsiinayaan Soomaaliya inaysan dib ugu laaban dhibaatadii soo martay oo nabad iyo midnimo inay gaaraan aniga saasaan u rajaynayaa saasaan qabaa hadii Ilaahay idin aad baad u mahadsantahay